soo dhawaada waa xilligeennii aan is update gareyn jirnay maantana insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idinla wadaago war yar oo ka soo baxay xafiiska maamulka madaxweyne Donald Trump warkan oo sheegayo ama amar ku siinayo hay-adda iyadu qaabilsan applicationada in ay process garayso USCIS United States Citizenship and Immigration Services ayaa waxaa amar lagu siiyey in ay joojiyaan in ay process garayaan wax kasta oo application ah oo ku saabsan arrimaha asylumka ama dadka magangelya doonka ah. So sida halkaas aan thumbnailka oo idinku soo qoray waxaa warkan uu ku saabsan yahay in la joojiyey wax kasta oo application ah oo asylum ah ama magangelya doon ah. Marka asylum markaan idhaahno waxaan eegaynaa hadduu ilaahay idmo maamulka Trump kadib ninkii odayga ahaa reer Afghanistan ee askarta xabadeeyey oo dhaawaca iyo dilkaba u geystay askarta Mareykanka waxaa iska soo dababaxay go'aamo adag oo ku saabsan arrimaha dadka soo galootiga ah. Marka madaxweynaha maalinkii dhaweeyay waatay amarka soo saareen haddana way ku soo celiyeen amar kale soo saareen. Amarkii hore sidaan wada ogeynba wuxuu ahaa in la joojiyo applicationada iyo soo qaadida dadka 19 dal ee hore aan u sheegnay kuwaas oo ahaa 19 dal oo bishii June uu madaxweynaha ku soo rogay amarkii ahaa travel banka. Haddaba waxaa ku xigtay amar kale oo isagana daba socday kaas oo uu ku sheegay madaxweynaha in dadka ka imaanaya Afghanistan aan wax visa ah loo ogoleyn dalkan qaxootina ay ku soo gali karin visa-na aysan ku imaan karin baasaboorkoodana aan la saari karin wax visa ah. So hadda maanta waxaa ku soo kordhay arrimaha kaysaska faraha badan oo ku saabsan arrinka dadka soo galootiga ah kuwaas oo ka socday dadka asylumka raadinayo. So asylumka waa magangelya doonka dadkaas iyaga ah ayuu waxaa u soo jeensaday madaxweynaha mar kale amarna waxaa lagu siiyey Joseph Edlow hay-addiisa USCIS oo iyadu ah in hay-adda process garayso application kasto ama green card ha ahaado ama I-94 ha ahaado ama citizen ha ahaadee application kasto oo dalka Mareykanka soo mara oo qofka uu ku raadinayo immigration benefit waxa uu process garaysa oo soo mara hay-adda USCIS. Marka hay-adda ayaa mar waxaa lagu siiyey in aysan approve garaynin oo aysan ogolaansho siinin in aysan deny garaynin oo qofna aysan sharci u diidin iyo in aysan xirin kaysaska. So no approval ma jiro oo ma la approve garaynayo, denial ma jiro oo qof la deny garaynayo ma jiro oo loo diidayo qof kayskiisa closed laga dhigayana ma jiro. So amarka ayaa la soo saaray. Arrinkan marka amarkan soo baxay maanta ma wuxuu ka dhigan yahay sharciyan in hay-addaas ay joojisay in ay process garayso wax kasta oo asylum ah? No, waxa ay sheegeen hay-adda in ay shaqadeeda wadanayso immigration officerskana ee applicationka qofkii asyliga ahaa oo soo buuxsaday uu sii wadaayo qofka immigration officerka ah shaqada wuu wadayaa all the way down. Haddii fara laga rabo farihii waa laga qaadayaa, haddii interview laga rabo interview waa laga qaadayaa, haddii maaragtay processkaaga in la sii wado oo qofka immigration officerka oo gacanta ku hayo uu go'aan ku qaato inuu sii wado wuu sii wadaaya. Laakiin marka la gaaro xilliga decision makingka ama go'aanka marka la gaaro baa waxa uu joojinayaa kayskii halkaasuu dhigayaa waa pending, then kayska kale u gudbaya. So way wadayaan kaysaska way ka shaqaynayaan sida hadda ay sheegeen sababta su'aashaas waa la weydiiyey laakiin wax go'aan ah oo ay qaadanayaan ma jirto hadduu ilaahay idmo. Arrinkan markii la weydiiyey Joseph Edlow waxa uu sheegay arrinkan wuxuu hold ku jirayaa oo pause uu ahaanayaa ilaa inta aan ka hubinayna buu yiri in alien kasto qof kasta oo qaxootiya ama refugee ama asylum seeker ama qof green card raadinaaye oo visa waxa raadinaaye ilaa qof kasto aan si fiican baaritaan ugu samaynayno sidaas la midana
and screening to the maximum degree possible buu yidhi heerka ugu sarreeya oo baaritaan ah inaan ku samaynayno oo macquul ah heerka ugu sarreeya oo baaritaana maximum degree possible meesha ugu dambaysa inaan la gaarayno dadka postkan ama sheekadan holday ku jiraysa so dadkii hore hataa loo process gareeyey oo sugayay approvalka oo let's say darbikaboodka ahaa oo waa hore ka xareystay lawyero oo work permitka iyo ku shaqaysanayay social security-ga iyo laysanka caadiga haystay oo case-kooda hataa uu dhadhowaa maanta waxaa la geliyey holdigan la geliyey madaxweynaha wuxuu sheegay in all countries ay yihiin markii hore wuxuu ay ahayd 19 wadan oo hadda ka hor travel bank lagu soo rogay hadda dhexdan waxaa laga dhigay third world countries wadamada dunida saddexaad dadkeeda ay ka yimaadeen baa laga dhigay now hadeerna waxay u guurtay sheekadii in la yiraahdo all nationalities wadan kasto oo dalkan Mareykanka asylum ka soo doontay muwaadinkiisa waxay sheegeen in aan loo ogolaan doonin in la process gareeyo applicationka actually waa la process gareynaya laakiin in la dhamaystiro oo lagu soo gabagabeeyo in arrinkan approval denial ama ogolaansho ama diidmo iyo nay ama in la xiro case-ka marka approval denial iyo closing of the case midna ma jirayso bay yiraahdeen arrinka isaga ah waa ka soo horjeedaan 19 wadanna maaha wadamada third world countries oo hadda uu sheegayay oo dunida saddexaad ka imaadayna maaha now waa all nationalities amarkan ayaa saakay ka soo baxay madaxweynaha xafiiskiisa Joseph Edow oo isagu ah ninka haysta USCIS-ta ama hay'adda ku fogan in ay arrinkan process garayso applicationadana waa ay ku raacday so dadkaas hay'addaas waxaa loo sheegay no denial no approval no closing of application asylumka especially arrinkan waa isugu soo dhigtay arrinkii hore green cardka waxa uu noqday in dadka green card ka qaatay iyaga naftooda laga daba imaado marka dadkii hore way hataa ka daba tagayaan markan kuwaas soo hubino inay dad si sax ah ku qaatay ay yihiin oo arrinkooda la soo dhameeyo baa kuwaana case-kooda la furi doonaa baa la yiri marka qofkii safeta ay la boodo oo rabay in uu dhaxdan ka samaysto maaragtay application ka sugayay way sugi doonaan midda kale waxaa iyadana soo korodhay in an automatic renewal of work permit-kii la joojiyey in work permit-ka qofka uu ku shaqaysanayo warqadda shaqada waxay ahaan jirtay qofka markii uu soo gaaro xilligiisa ama waqtiga intuu isagoo bilo u dhiman tahay baa la sii renew gareyn jiray usually mailka lagu soo diri jiray boostada inaad application aad samayso uma baahnayn laakiin hadda waxa ay ka shaqaynayaan in uu ka dhaco work permit-ka marka uu work permit-ka ka dhaco oo shaqada bahalka ku shaqaynayso kaarka shaqada kadib inaad apply garayso marka inay ama ku siiyaan ama ku diidaan so ujeedka waxa waaye in la ogaado dadka sharciyada haysta sida ay ku qaateen baaritaanka dadka lala sugaayo marka waxa ay meelaha ay ku gaadayaan waxa kamid ah in work permit-ka haddii uu ka dhaco aan lagu automatically oo loo cusboonaysiinaynin si automatic ah oo la sugi doono in aad dib u soo apply garayso marka dadka uu ka dhacayo waxa u fiican insha Allah taala in lawyeradooda oo ay ka xareysteen work permit-ka ama immigration lawyer-ka ay sharciga ka xareysteen iyo waxaas inay kala xiriiraan oo ay arrinkan kala sheekaystaan tan kale in lawyer ah oo Soomaali ah oo jooga Minnesota maalmeed waa idin sheegay baan haddana warkiisii ku soo celinaya mar kale sababta marka uu soo qoray haddii interview lagugu yeero waraysi oo aad green card haysato green card kaasna la rabo in lagu sameeyo verin baaritaan ama aad sugaysaba interview in lagugu yeero usually green cardka qofka lama interview gareyn jirin citizenka bes baa interview laga qaadi jiray laakiin hadda baryahan dambe waxa ay soo wadaan in dadkii hataa hore green cardka u qaatay dib loogu yeero loo wareysto ninka odaga wuxuu soo jeedinayaa in aad lawyer wadato lawyerka la'aantiis ha tegin meesha so immigration lawyer hore usii wado meesha at least kula tago kaala qayb qaato haddii hataa ay maaragtay kolley
dad immigration lawyer hadda u joojinayo ma aha haddii ay hataa ku xirayaan camal ama dad baa jira hadda saas ay ku sameeyeen oo xaasas ahaa oo interview inta loogu yeeray xaasaskii la xiray ama maaragtay say ha ahaado ama ori ha ahaatee dadkii waa la xiray oo green card interview baa loogu yeeray trap baa caadi bay ku noqotay waxay ku noqotay dooli soo galay meel soo galay dabin ku soo dhacay oo kale so taas hataa loo qorayay arrinka isaga marka haddii interview aadayso ama ay ku yeeraan ay ku baahan yihiin waxaa u baahan tahay in aad sii wadato lawyerkaaga arrinkaasna uu soo kordhay haddeer no more decisions marka derbi kabood oo dhan dadkii sugaya sharciga waxaa ku soo kordhay arrinkan oo ah in aan wax case la process garaynaynin inta kuwii hore sida ay sheegeen intii laga daba tago baaritaan lagu soo sameeyo lasoo make sure gareeyo so arrinkaa hore way ka hadleen oo waxay dhaheen qaadayna way yidhaahdeen amarkan ilaa aan qof walbo baaritaan kusoo samayno so maanta arrinkaas ayaa ka cusub arrinka immigrationka wax denial male wax lagu diidaya male actually wax lagu approve garaynaya male casekaagana lama xiraayo inkasta oo say sheegeen weli shaqada ay socon doonto oo ay sii wadi doonaan arrinkan ayaa ka soo cusboonaaday arrimaha immigrationka marka asxaabta markasta igu xiran oo igala soo qayb qaadata programka waa idinka mahad celinaya intaa ayaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala until next time waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh